أفضل منصب كي مقامكم كفر يوم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وحان كودي رجليا إجاريه هوري دولة فدرالك الصومالية مدن حسن على خيره كوانكي جيسين مدن لها وكقاتي وحال جوجا وقتي إن الحكميو kala guurka siyaasadeed dalku wuxuu wajahayaa waqti kala guur loo baahan yahay in la qaato go'aano masiiri ah loona tanaasulo qaranka Soomaaliyeed waxaan nasiib xumo ah in ay wali muuqato dana shakhsiyeed ilaalinta danaha shakhsiga balse ay muuqan ilaalinta dastuurka iyo danta qaranka waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka labadiisa aqal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in mar walba la ilaaliyo danaha qaranka mar walbana uu ka sareeyo dastuurka cid walba haddii aan la ilaalin dastuurka inoo darsan waxaa dhalin karta cawaaqib xumo siyaasadeed iyo mid amni oo aan la xakameyn karin si ay taas u dhalin waxaa muhiim ah in hadda laga hortago wax walba oo ka dhalan kara waxaan ogeysiinayaa baarlamaanka labadiisa aqal iyo mas'uul walba la doorto waxaa lagu doortay ay shacabku u igmideen muddo cayiman muddooyinkaas ay ku cayim yihiin dastuurka qodobkiisa 6aad iyo qodobkiisa 91 oo ah in mas'uul walba oo xilka loo magacaabay uu haynayo muddo 4 sano ah wixii ka dambeeyana loo diyaar garoobayo in ay dhacdo doorasho marka waxaan leeyahay dhamaan waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii ay rabno inaynu gaarno waxaa muhiim ah inaan yeelano higsi si aan u gaarno horumar waxaa muhiim ah inaynu helno mas'uul ilaalin kara ammaanada qaranka bixin kara adeega bulshada. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.